Bismillahirrahmanirrahiim. Waan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran channelkayga. Waxaan idin wadaa qayb ku cusub channelka maanta oo ah barashada tiknoolajiyadda. Fadlan saar subscribe kadibna gambalelka taawo si ay ku soo gaaraan akhbaar walba soo geli. Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan bilaabanayaa cashirkeenii Word 2007 oo aan ku qaadan doono how to create picture watermark. Haddaba sidee loo sameyn karaa picture watermark ahaan warqadaada ka soo muuqanaya. Marka hore aan soo kacsana page-keenii Word-ka, kadib qoraal markaad sameyso waxaad tagaysaa page layout markaad tagto sanduuqan kuu soo muuqanaya waxaad ka dooranaysaa watermark. Kadib waxaad kasii dooranaysaa custom watermark. Markaad doorato waxaad kasii dooranaysaa picture watermark meeshay ku qoran tahay. Kadib waxaad dooranaysaa sawirka aad dooneysay, select ku sameey. Anaga daba kana qaadanaynaa kadibna insert leh. Kadib picture ka qaad meeshaas aad u jeedid. Kadib size cabirka aad dooneyso in warqadaada ku soo muuqdo qaada. Hadaba anaga waxaan qaadanaynaa 100% kadib okay dheh. Sidaan ayuu warqadaada ku soo baxayaa. Sawirka aad soo gelisana wax saameyn ah kuma yeelan doono qoraaladaadii aad qoraysay. Waa cashir yar oo aad u gaaban easy-na ah, aadna muhiim ugu ah markaad ku shaqeynayso ama aad isticmaalaysid kombiyuutarkaaga oo aad doonaysid warqadaada daabacda in aan lagula sameysan. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.